السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي أصحابي وإذن سلام ملك استوديو ذات كجوكتان. long time no see. ما أنت وأنا جوك صور هاي ما شاء الله. كورونا فيروس وقدماني الله نجا رمضان وقدماني رمضان كلو عافي ماذا الله الناس وقلي أنا والنور عافي ماذا قبنا إن شاء الله. أنت كدت ما أنت ما عاو حقيدين وذا قصة آد ومعان بدن. laakiin qisadii macaanka badneed anigoo soo diyaarsaday oo leh si fiican u dhadhansii ayaa waxaa dhacday in gabar walaasha ah oo magaalada ila degan ay soo dirtay clip aad iyo aad u xanuun badan oo aniga clipyada aan sideedaba soo dhigo ka shaqeysa la mid ah oo macnaha isku topic ay yihiin maasha allah. clipkii waan rabay inaan soo qaato videoga soo gashto laakiin without idin of or permission waxaan isdhahay Soomaali badan arka dhahayaan aniga ajalkayga aniga idin la ima weydiisan ajalkayga ma ogoli in la qaato ayaan arkay marka waxaan dhahay spare marka afka idin ka sheegaya taasna wax yar ka taabanayaan waxaan gudaha u galaynaa barnaamijkaygi Soomaaliyeey wiilasha waliba xadkaad ka baxdayna xadka kusoo noqda please. marka waxaa dhacday in gabadh hadda gariiga ku sugan wiilkii qabay ama ninkii qabay uu xumeeyey ha xumeeyee ma caafimaad qabta maya way jirin tahay lugaha sawirka gabadha clipkiisu aniga gabadha ma aqaani kulay gabadha ii soo dirtana waa loo soo diray iyadana ma taqaano lugaha cudur waxaa jira la dhaho elephantiasis cudurkaas inay qabtaan umaleeya xabada lugtiba waxay la dhan tahay subxaanallah jilibka ilaa ka hoose gabadhaasaas dariga u taalo wadankeegina joogin gariiga joogto ama qurbo joogto ayaa ilmihiina lagu dafiro oo la yiri ilmahana aniga ma dhalin ayadana banaanka looga cararay wiil Soomaaliya laga helaa wiilasha Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed mid cilmi lahayd mid cilmi la'aan lahayd in roole iyo waayeelba wayna la hadleen laakiin dhaga idin ma daloolaan musmaara dhab ku ah ilaahay idin soo hadiyo insha Allah. marka maxaa dhacday gabadhii in caawimaada kulli u baahan tahay telefoonna kama haysti anigu laakiin haddaad rabtana isla caawino Soomaali meel kasta way joogtaa haddaad rabtana isla caawino gabadhaas please comment isoo qor aan qaylidaan waa wareeyay u dhahan insha Allah. intaas waxaa weeyaan wacyigelin ayay iga ahayd. marka waxaa dhacday aniga qisadeydii aan guda galo markaan qisadaas aad iyo aad ayay ku cajabini doontaa meeshii annaga wiilasheeni Soomaaliyeed aabahay ani ma nacbani wiilasha Soomaaliyeed wallahi ma nacbani aabahay walaalkay adeerkay abtigay kaan dhalay kaan u dhaxay intaba waa nin Soomaaliyeed ani ma nacbani baad ayagaa eedda wada eedkaa timaada iyo amar eebba mooye sameeheen ayagaa la imaaday marka eedoodana laguma dhaafaye waa la karbaashaya de. marka waxaan qisadayda aan guda galo yaanan ku dheeraanin clipkana ugu dheeraanaya hadda clipkana kuma soo dhameyni karo qisadayda waxay noqon doontaa continue ma fahanteen hadda qayb baan ka dhihi doonaa inta kalena qaybta kale waan soo gelin doonaa musalsal camal alla iga socdo asxaabi waa jecelahay wallah. marka waxaa dhacday wiil ayaa jiray qisada waxay ka dhacday Africa West Africa ayay ka dhacday wiil ayaa jiray wiilkaas calaf umuusan yeelanin inuu waalidkiisi arko hooyo iyo aababa muusan arkin orphan ayuu ahay orphanage ayuu kusoo koray waa la soo caawiyey waa la soo barbaariyey soo weynaaday isla magaaladii uu orphanka ku ahay orphanage-ka kaga jiray ayuu haddana taajir ku noqday wiilkii isaga ahay alxamdulillah sooma
marka waxaa dhacday wiilkii markuu weynaaday taajir noqday, hami kale iyo adduunyo kale ma raacin. wuxuu dhahay aniga agoon baan ahay oo rajaan ahay oo dad baa isoo caawiyey, anigana noloshayda waa haaf. intaan ku buuxinayo noloshayda waxaan ka dhigaya inaan anigana dad caawiyo. ofan ayaa jira, needi kale ayaa iska jira, dad iska puwa oo iska danyar ayaa jirta. dadkaas ayaan u istaagayaa oon caawinaya. isla magaaladaas, intaas waa wiilkii, isla magaaladaas waxaa ku nool gabar. ayadana gabadha aad iyo aad iyo aad maasha allah ayay u qurux badneed. abeed wuu dhintay, walaalayaasheedna dhan way dhinteen, ayada bas oo indhool ah iyo hooyadii ayaa cid ku soo haray. marka sidaad ogtihiin dadka magaalada joogo, dadka miyiga joogaan family bay ku leeyihiin. dadkaas ayay u tagaan, ama gabdho ama wiilal ayay kasoo wataan say u koriyaan, ayagana ay ciidan uga helaan. kuwii fiican iskool bay geeyaan, dugsi bay geeyaan, wax kastay geeyaan, noloshiisana way soo qaadaan. kuwii kalena hadda ciddaasuu joogaya, cuntadiisii asagana lagu shaqaystaa. marka eedadan gabar lama soo siinin, wiil ayaa lasoo siiyey. maasha allah, wiilkii gabadhan ayuu garwadi jiray. garwad waxaa laga wadaa qofka indhoolka ah, qofka haga oo meeshuu u baahda geeyo. markaas maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay tiri, meel waxaa jirta ay aado, meel kastay gabadha maskaxdeeda ka maagto, wiilka waxay dhahdaa aboowe iwad wuu geeya, oo de xaafadii ah. waxaa jirta marka wax stream la dhaho. stream kulley af English waa stream, laakiin waxaa u malaynaya af Soomaali inay tahay ama meel ceel ah, ama meel war ah, ama meel tog ah oo biyo ilaahay geliyey, oo ama lagu dabaasho ama dharka lagu dhaqdo, cid kasta say u isticmaasho. meeshaas waa layskugu imaadaa, dadka ayaa iskugu imaadaan. banaankeeda waa lagu ciyaaraa banooniga, wax kastaa lagu samaystaa meeshaas. dadkii dharka dhaqanayan dharkay dhaqdaan, intay dharkooda u kowraxayaan ama u angegayaan, meeshaas layskaga ciyaaraa banooniga. alxamdulilah, gabadha way tagtaa, markasta way aadaa, meesha way soo aadi jirtay. laakiin maanta maxaa dhacay? maanta waxaa dhacay xarfaankii ofanka ahaan jiray oo haddana taajirka noqday, wuxuu leeyahay isaga target. waxaa jirtaa meelo uu targetka saarto, shaaracyadoo kale, jidadkoo kale, suuqyadoo kale, meelaha layskugu imaado ayuu targetka saarta. intaas inuu ka helo qof aada u liita uu caawiyo. alxamdulilah, maalinta targetka gabadhan ayuu oga dhacay. gabadha aan u noqday, gabadha aad iyo aad ayay u qurux badan tahay, maasha allah. on top of that waa talented. ilaahay lixaadka indhaha ayuu tiray, laakiin maskaxda wuxuu u geliyey laba maxaa la dhahaa, laba xikmad ay ilaahay u geliyey maskaxdeedii. maasha allah, gabadhaas waxay qabtaa voice memory waxa la dhahayo. maalintay dhalatay, maalintu oy macnaha magaalada aqli ay yeelatay, garaad, codkay maqashay ilaa maanta way kala kasaysaa dadka. kumana arkayso meel dheerna ha ahaato, waxay leedahay waa codki Faadimo, waa codki Cali ay leedahay. voice memory ilaahay siiyey. midda labaad wuxuu siiyey gacmaheedii camera uga dhigay. camera maxaan ka wadaa? waxay sameynaysaa ama clay soilka dhooqada oo laga sameeyo sanamka ama laga sameeyo waxyaalahaas, ayay imaanaysaa, qofkii wejigiisay taabanaysaa. markaas waxay ka sameynaysaa sanamkii, qofkii sanamkiisa ayay ka sameynaysaa. qofkii wuu yaabaya, sida ayadoo arkaysa sankiisa siduu u yaalay, indhaha siday u yaaleen. maasha allah, ilaahay ayuu lixaadkii labadaas u geliyey. gabadha saa idin sheego aad u qurux badneed, maasha allah. wiilkii maxaa dhacday?
gabadhii markuu dhahay ay dhahda soo kac igeey meeshii streamka igeey, wiilkan aboowena wuu soo joogay, gaariga meel kale soo dhigta, lugtiisu ku meelihiis uu taageedkiisa saartay, lugtiisu ku taga maryo wuxuuna soo xirtaa duluf ah saan loo qasin. alxamdulilah. wiilka yaraa remember waa cunug 8 jir ilaa 10 jir, waa ilma. isagoo gabadhii soo wado streamkina aanan gaarin ama meeshii maxaa la dhahaa warti ama meeshii biyaha u socdeen la gaarin, meesha markaa hoos ayaa loo degaa jaraanjar ayay leedahay meesha biyaha loo doontay, inta kalena waa gebi. gebiga markaa hadda saa u istaagtid waad ka dhici kartaa. wiilka intuu abaayo kusoo waday meeshii ayaa banooni lagu ciyaarayaa ku dhacay, oo wiilkii soo orday banoonida soo orday way ku dhacday. waa ilmo yare, wuu xinaaqay, kuwii banooniga soo tuureen ayuu dagaal iyo la galo, halkaas cay iyo balaayo ka bilaabay. abaayo wuu iloobay. abaayana way fahmi waasay, waxay tiri aboowe maxaa ku daaray, aboowe maxaa ku daaray, aboowe yaa kula hadlaya wiilka carooyay tagiyay. wiilashii u dhex galay. aboowihii oo taajirka ahay oo geeska ay abaayo taaganta minutes u jiro ayaa qayliyo orod iyo cabaad gabadhii kusoo orday. gabadhii haf siiyey. gabadhii markuu haf siiyey, kiina wuxuu soo tabay inuu gabadha wado, dib buu usoo laabtay. kii yaraa soo cararay iyo kanoo gacanta wado. wiilkii ayuu canaantuu yiri maxaa ku helay, maxaa ku daaray, naf dhan ayaad hagaysay say kaa noqoto camal. gabadhii gacanta uu qabtay, wuxuu yiraahday soo kac, soo kaca, intee degantihiin, soo kaca, guriga idin geeya. hayay dhaheen. gabadhii way argagaxday, indhaha cadeesa kasoo haray. wiilkii yaraa ka daran, kii weynaa wax caawiyey ka daran. waa la soo waday, guriga ayaa la keenay. waxyoon lisla hadlin, lisweydinin intee degantihiin, intee ka imaateen, maxaa aheedeen, ayaa gurigii gabadhii imaatay. gabadha guriga la keenay iyo wiilkii kale wuu dejiyey, wuuna laabtay. gabadhii indhaha cadeynayso shoog qaaday. hooyo dareemaheeda iska garta. hooyo wiil Soomaaliya waa tan aad dhulka ku jiida waaye ogow, ayaa waxay tiri gabadhii argagaxsanay tiri maxaa dhacay, maxaa dhacay. way weydiisay, in laga qariyay isku dayeen, laakiin waxay tiri hala ii sheego what happened today. waa loo sheegay waxaa dhacday saas. wiilkiyaa sheegay, gabadhii maba hadlinbo, argagax iyo indha taag ayaa kasoo haray. waxaa dhacday in hooyadii wiilkii canaanatay ku dhahday maanta, waa loo sheegay sheekadii, maanta hadduuna good samaritanka meesha joogin, macnaha samafalahaas meesha uu joogin, gabadhayda maxay ku dambeyn lahayd. wiilkii bay canaanatay. wiilkiina wuxuu dhahay eedo she's okay now, hadda way fiican tahay. way canaanatay, waxay tiri okay ayaad iska leedahay, asif ina adiga soo badbaadisay. Soomaaliyay qisadan aad iyo aad ayay u macaan badan tahay. qaybtii labaad iyo wiiga dambe insha allah. mac salaama.